ragga presska ka socda yaan rabaa inaan soo dhaweeyo on press statement aan bixinna magacayda maxaa waaye Cabbaas Cabdullaahi Macallim oo chairmankii Ajurang National Council maxaan rabaa inaan ogeysiya dadweynaha reer Wajeer in saddex maalin kulan aan qabanay Ajurang National Council iyo xibinta la dhahaa Ajurang Council of Elders aan ka tashanayni xibintii oo Ajurang ay ka qaadan lahayd doorashada soo socota taladaa muddo dheer ay soo socotay annagoo fiirinayna dantii Ajurang iyo dantii reer Wajeer marka waa tashanay shan shiraan qabanay shirarkii alxamdulillaah waa ku guulaysanay waa noo soo dhammaatay go'aan yaan soo gaarnay maanta oo taariikhda ay tahay taariikh 14 bisha 2 2022 go'aan adag yaa ka soo baxay resolution Ajurang National Council iyo Ajurang Council of Elders go'aankaas maxaa tangaazayna doono patronkii ANC iyo ACE Honorable Ahmed Abdisalaan MP Wajir North yaa daadahaynay shirka oo patronka asagaan tangaazayna doona go'aankii Ajurang soo gaaray intiis patronka hadling maxaan nafaas hal daqiiqa aan siinaa chairmankii ACE codkiisa inaan la maqla markaas ka bacdi muhashimu waa qaadana waa Yusuf Ibrahim waxaan ahay chairmanka ACE Ajurang Council of Elders siduu chairmanka ANC ba sheegay beesha way fariisatay Ajurang sida la sheegay shan fadhiyaan lahayn fadhigii markuu dhamaadaba haddana beesha ilaa gudaha hoosaan ugu noqonaynay waa la soo tuuraa maaragtay wixii jirjiro hoose ayaa maaragtay la soo dhameynayay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan gaarnay go'aankii ugu dambeeyay ayada oo Ajuraanka uu fiirinayo waxay fiiriyeen sida la sheegay danta tolka iyo waxaa la fiiriyay danta countiga Wajeer Soomaalida ku nool oo dhan oo xirfyada daafaha countiga ku nool marka sida la ajligeed beesha go'aan bay qaadatay go'aan buuxay qaadatay oo nus ahayn oo ma aragtay laga warqaba inta ay beesha degtay kulli oo Kenya laga warqaba iyadoo kalsooni buuxda meesha iyada go'aankaas lagu gaaray marka sida la ajligeed go'aanka asaga waxa noo go'aamin doona siduu chairmanka horeba sheegay mudanaha waqooyiga Wajeer Ahmed Abdisalaan isaga ayaa patronka ah isaga af Ajurang ku hadlaya marka ana intaasaan ku soo gaabinaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi labada chairman waxay ma aragtaa khusayaan chairmanka Ajurang National Council ANC waa arrimaha uga sareeya oo talada Ajurang ninka chairmanka ka ah chairmanka ANC-na waa arrimaha countiga ku saabsan oo Ajurangka ninka chairmanka ka ah labada guddi markii la isku daro xisaabtooda waa 60 oday ay ka kooban yihiin professionals odayaal iyo dadka culumaa u diina marka tii awgeed sida la diin sheegay taladan muddo dheer ayay soo socotay uga dambeys 3 bari oo maanta ay ku 3 tahay ayaan u fadhinay go'aankii uga dambeeyay oon gaarnay ayaan idin soo bandhigaynaa go'aankana waa go'aan aan ku idilna waa go'aan afkii beesha Ajurang ah waxaan ku heshiinay inaan u tartanno nafaaska senataga Wajir County iyo nafaaska women rep Wajir County sidaad ogeedeen dooda ka sacad waxay ahayd nafaaska aan u tartamayno ma senataba masi waa governor Soomaalida waxay leedahay cad burcad ninba afkiisaas la rabaa Soomahan tii awgeed burcadiina ninba afkiisaas la rabaa tii awgeed aad beesha Ajurang indhaha uga taagtay
nafaaskii governaga laakiin haddana markii la fiiriyey danihii badnaay odayaashan ay sheegeen waa danta beesha ajuuraan iyo danta reer wajeerba waxaan isku afgaranay nafaaska sinetaaga haddaba cidda ajuuraan ay haysato iyo nafaaska women rep inaan u tartanno waxaana la samayni doonaa partnership ciidaha kale oo Soomaalida ah oo countiga Wajeer degan Wajia West ha deganaato Wajia East ha deganaato ama Wajia South ha deganaato partnership ayaan la samaynaynaa siyaasad aqaani jirteen ma aragtaa line up wax la dhahaa ay qabtaa Soomaha arrimihii line up-ka ma dhinacaanan aadna mase dhinacaanan aadna waa hool noo dambayso haddana aan ka fadhiisan doono go'aan aan ka gaari doono hadda maanta waxa aan ku heshiinay waa nafaasyihii cidda u tartami lahayd waana nafaaska sinetaaga iyo nafaaska women rep Wajir County waxa ANC iyo ACE ayaa application qaadi doona dadkii nafaasyahaas u tartamay application ka qaadi doona labada qof oo nafaaska u tartami kan sinetaaga iyo kan women repna insha Allah waan ku heshiin doonaa waana adin soo bandhigi doonaa laakiin maanta waxaan taaganaa inaan nafaasihii lagu heshiiyo hadal ka dambeeyana asan jiray intaas ayaan ku soo gabay